sheegin ayagoo qabiil ku tuulay lama sheegin al-shabaab oo qabiil ku tuulay al-shabaab oo qabiilka runna ka dhigtay target ka dhigtay hore tusaysaa inay meesha al-shabaab ku jirto mid labaad oo al-shabaab haddana meesha ka saarayso waxay tahay al-shabaab waxay dirayaan oo qoriga ku dhuftaa xabad ay ku dhuftaa isboortay gooyaan ma silcadiliyayaan oo meydka kuma tacdiyaan odayaashan 8 bay ahaayeen mid mooyaane 7 kale madax kuma ooyo madax waa madax waa singileeyo kala noqdo markii la aasayo reerahoodii la geeyey habkii u labisnaayeen iyo calaamo kale ku tiilamaana weji looga aqoonsado malay weji looga aqoonsado malay marka waxa weeye waa tacdi loo geystay dilkii kadib ma anta shabaab saaf ma shaqayso mid saddexaad oo meesha ka saarayso al-shabaab waxa weeye al-shabaab waxay dilaan waa sheegaan annagaa dilay sabab ay sheegaan ay quraan bay sheegaan isoo hadreeriyaan ma inkiraan arrintii ka dhacday maxaa la yidhaahdaa tiyaatarkay sheegteen tii mataqaanaa hotel shaamay sheegteen tii waxay sheegteen madaxtooyada dambeysay sheegteen bartan maxay u qaranayaan idan maxay u qaranayaan ma biimaalay ka baqayaan hadday dawladdii iyo mataqaana hubkii wax walba ka baqi weynay madaxtooyada ay tageen madaxtooyada ay sheegteen oo maxaa la yidhaha tiyaarka dadka ay ku sheegteen sababta ay ku sheegay kuntiitood 8 ay ku inkiraayeen waa ayadoo aan la weydiinay sheegay waxay annaga shaqa ku bili cidii dishin waa naqaana ay raacaya annaga shaqa ku bili midaasna iyadana waa mid kale meesha ka saarayso in maxaa la yidhaahdaa al-shabaab arrintaas ka dambayso marka maxaa la yidhaahdaa dawladda waxaa la yidhaha farqufur ay soo qabteen waa nasiibko nimankaas hadda la qabtay haddii la helo oo dembi lagu helo oo maxkamad la geeyo oo dembiga lagu caddeeyo waa doogash waa dil hadda dawladda waxaan kala talin lahaa kala dardaarmi lahaa oo laga qabsaday nimankaa la qabsaday qaladii qalad lagu sixinay nimankaa la hayo yaan lagu degdegin khasaaradooda iyo dilkooda horta ha lagu hadday looma ooyo looma aarayihin waa حتى هديه وبناء والصومالي ومواطنين صومالي ما عن الديو ما عن منطقة المحلية هذا سبب أي لهين دم أي لهين واحد وجهه أنا ما من سنة لما كلاس من واحد يوم تجري هذا الصوت ما كسر شو حوي محل وتري قلت أنت عدي شيء منطقة محلي بعد حدين ما كسر الشباب ومنطقة مير بيوتها لكن سببت يقول الدوام سببت يقول الدوام حويس وحكل هي سببت وحكل ولاد هاي دجال القصة على شغلة بس قارها نمبر كم دجال القصة نمبر كم لمن كانوا هايين odayaasha looga dambeeyey talada number 50 waxay ahaayeen madaxdii number 50 waxay ahaayeen raggii mataqaanaa maxaa la yidhaahdaa nabadgelyada iyo maxaa la yidhaahdaa ka ahaa mas-uul ka ahaa number 50 dagaaladan ka socday oo number 50 ilaa hadda meesha ka socday waxay ahaayeen raggii mataqaanaa degmadaas ilaalinayay oo lagu ogaa waxay ahaayeen odayaashii sida adag oo adag dawladda ku eedeeyey markii ciidanka dawladda uu noqonta weeraray waan haynaa hadda waxaan haynaa xajalooyin duwan odayaasha qaarkooda meesha ku jira mataqaana ay ka hadlayaan hawlada adcaalay ku filmay way ku hadlayaan oo mataqaana aan isleenahay waaba sababtay u dhinteen sababtii loo jiray
هذا الله أضك ودولتي أنت كلا دولة السعود أي كلا هرتجان مكي لصور لي محل هذا الكونتر مركب حلو دي سؤالي وحيد هذا نص مضى على جدنا وحلو دي إن نمبر كونتر لا تيجو ولا جدي له مرحلة وذياش وحيود التين سديت وحيود التين إن نمبر كونتر لا جدي له مرحلة مدحي نمبر كنتم هو دجالة نمبر كنتم نمبر دجالة شباب هو سكسرده وفرنت حسب الكوبات فرنت اللي هروي ولا لسه قلنا شباب هو دجالة ماشي يكبل لونايا ماشي تاريخي ماشي هذا يجوا منطقة أنا كسرنا ونمبر كنتم مركو حلوتي لي ولياشات وماشي منطقة نفط كويين مدحت نمدي نمبر كنتم إلا الله يوم نص مدحها لكتلا ساسا قضياشا يوم انتهي منعها دم أي ليلهي محالي هذا الشباب دم أي سنة الشباب ليلهي ويتاكل في هذه السوق وإذا بركنت منطقة نمرحتنا للتشو شعشراب شبابوها دم معه دمها أي هذه السنة معه محالي هو كان هدي لي دولتي عيد كيريا سو ويرضي محالي بركنت waxaan ka xumahay aad iyo aad aan ugu xumahay dhowaan waxaan dhageystay madaxweynaha jamhuuriyadda oo ka jawaabayo su'aal asagoo ka jawaabay su'aal loo soo jeediyay wuxuu yidhi ma jiro ciidan dowladda ay leedahay oo weeraray shacab ma jiro waxaas ka horreeyay إن عينك الدولة وقوته الدري بودي هذه الجوال زوجي تكمل زوجي إن بيشي نوفمبر لحي توكل أي واقف مقابل بكونتم بربوبية ضدلاية لحي توكل إياه وحال السوقي من المعيشة صدقوني التوكي يا واحد تجي ووفتي دولتك السعودة وزيرو أكملتهين حدوانا أكملتهين إيوه دبوب الإسرائيليين تبايشة الرياضان نمر كنت على السويت وزيرك يا حباها القرآن يا بيرتي يري رواطة هالكان كبر علي إذن كدولة داكيستي إذن كدولة داكيستي دولتنا أنا قالوا وحيد وزيرهان وحنطر القاضية إن هي دولة مقدو سمينش وهي مقدو يسو لبعض إيدك الدولة كيستين وحكذا بهذا وعسين مركز كلا هذا ننجنا رابع وهستقين عيد ما حقك هو قال شوالها بالصعيد انتو استاغي ورتو وحب عيد هذا قليل جناب على جنرال قاطع ولا لا قال له تبعي وحير على منطقة أنا هلا راجع هو يقعد شيء شخصيا إن لعفيه إن وحيد عفيه دول ما يعرفوا من باقي أنا قاعد يعفيه لما أنت تالية تورنتو عاوك السوق الجلسة بروفيلا dhaqameed shabeellada hoose oo lagu laayay magaalada buur xakabo dhammaan sidaan filaayo ilaa iyo maalintii raggaas madax dhaqameedka la laayay jaaliyado badan oo Soomaali iyo meel walba waa looga tacsiyeeyay annaguna waxaan aniguna leeyahay ilaahay mataqaanaa dambigoodii iyo dambiga waalidkooda ha dhaafo ummadii ay ka tageen ilaahay ka samarsiiyo dhibaatooyinkaas socday ka mid tahay oo ummadda Soomaalida bareerka meel walba loogu leynayo waana taariikh cusub oo intaasoo madax dhaqameed oo wax dambiya ama fal aan gacanta kula jirin si bareer loo laayay ummadda Soomaaliduna waa inay arrintaas meel kastoo ay joogaan ay arrintaas taageeraan oo dadkaas ilaahood u bariyaan
ummadday ka tageen iyo gaar ahaan eheladii iyo qaraabadii iyo ummaddii meeshaas dadkaas ay ku waayeenna samir iyo iimaan allah ka siiyo culimadii caawi ka hadashay ama dilku wuxuu yahay ama xaqdarrada oo faahfaahiyey markasta diintu waa sheegaysaa wixii xaqa iyo waxaan xaq ahayn odayaashaas oo dhaqameedka shabeellada hoose gaar ahaan magaalada la yidhaahdo lambar konton oo anugu si fiican u aqaanay oo magaalo nabadeed ahayd ilaahay naxariisto waxaan intaasna waxaan kusoo koobayaa waxaa la qabaa dadka uu tacsiyadeynaya dadkii dilkaa ka dambeeyena oo nasiibdarrada ugu weynay tahay meel waxaasoo kale ka dhaceen oo wax laga qabtay ilaahay hadda ayna jirin inaba adduunkaba ka jirin baan filayaa waxaan mahadcelinaynaa ilaahay marka ugu horeyso marka labaad dadkii sidaan soo qabanqaabiyey oo maxaa la yidhaahdaa isku soo dabaraday si aan ugu maxaa la dhahaa ugu tiiraanyoona dadkii maxaa la dhahaa waalidiinteen ahaa oo meesha lagu laayay maxaa la dhahaa burakabo marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed horta gabdhaha khayr Allah siiyo meel kastoo la joogo geeri aroos iyo wax walbo iyo tiiraanya iyaga kula qaybsanaa laakiin ragga Toronto joogay 20 qof ama 30 qof inay ku yimaadaan markii la yiraahdo tiiraanya ama maxaa la yiraahdo dad loo tacsiina waa ka xumaan waxaan kaloo u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed haddaanan laga dhiidhiyin in maxaa la yiraahdaa markii waxaan oo kala dhacaan in la isu yimaado oo maxaa la yiraahdaa la tuso ummadda inaan ka wada xunahay waa wax aad u xun waaye maalin walbo haddii maanta adigu ku dhicin tomorrow beeshaada ku dhacaysaa inkastoo kelmadda beel oo dhan iyo qabiil oo dhan aan nahay marmar waxaa idhahdaa yaa kaa tirtiro haddana waxaa wax iga tirtiraay male laakiin waxaa naftayda u sheegay inaan qabiil kasta ka mid ahay marka waxaan kaloo u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed nimankaas xaqdarrada lagu dilay odayaashaas inaan loo arkin 2 qof ama 3 qof oo mujrimka oo dilay inuusan qabiilkooda oo dhan ama dadka dilay dadka ka dhashay aanan loo aanayn karin sababtoo ah 3 qof ama 4 qof ama 10 qof oo is abaabushay ama maxaa la yidhaha ku talagalay inay dhibaateeyaan dadkaas beelihii kaleeto ama qabiilkay ka dhasheen inaan loo aanayn halkan waxaan uga tacsiyeynaynaa ummadii lagu laayay buurhakabo ilaahay kitaabkooda midigta ka siiyo odayaashii lagu laayay buurhakabo Soomaali oo dhan bay ka dhinteen beel keli kama dhiman marka ilaahay horta ummadan ilaahay jidkasan allahna wada tuso jidkasan ilaahay qaatumadana khayr allah noogu qadlansiiyo waan maqanahay maskaxdeena ma joogto meel aan ka habaaranahan ilaa hadda ma dareensanin Soomaali anaga islaynayna waana la laaynayaa aniga wadanka South Africa ayaan ka imid 9 bilood ayaan joogaa Canada South Africa la iga soo qaaday oo habeen aan dadka lagu leeyaysa jirin maalin walba iyo habeen walba maalintan waxba la dilin 3 qof 4 qof waa la dilaa madaxweynaha dadkiisa way la xisaabtamayaan in ilaahay idin naxariisto u duceeya dadka maanta sida foosha xun loo dilay u duceeya kuwii dilay u duceeya inta dhibaataysan dunida ku baaba'aysa u duceeya kuwa guriga kugula nool in ilaahay idinkana idin naxariisto والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتي سلام كبعد وحن جعلها موضوع اللي قاعد متكبد لنا كعب أو قصة أحسن المدة اللي دلك قربة دونك جدي وأنا درس كخصوصي وحرام على يدك وجوه كاستيلا هاي عروتي هابيل عروتي أبوه من آدم يؤيد حاو
labadii wiil ay dhaleen Haabiil iyo Qaabil ayaa ugu horreeyey halkaas ayuu ka bilowday ilaa waagaa laga bilaabo ilaa maantada wuu socdaa wuuna socon doonaa saan filahay laakiin arrinta la yaab kale ee aan soo jireenka ahayn ee ugubka ah ayaa waxay tahay 8 oday dhaqameed oo meel intii baabuur lagala degay la kaxaystay meel la geeyey madaxa laga gooyey waa arrin cusub oo ugub nagu ah oo nagu cusub dhaqanka soomaalida hidiya dhaqan bay leedahay sidaad la socotaan dumarka carruurta odayaasha oday dhaqameedyada waxaa la dhihi jiray waa bilmageydo oo laguma degdegi jirin lamana taagan jirin waa la badbaadin jiray marka arrinta la yaab kale aniga igu noqotay ugubka waxay tahay baydhabo ciidama Itoobiya joogay Amisom baa joogtay kuwa dawladda joogay ruuxa kale nafteeda meesha lagula degay ayay joogtay marka waxaad moodaa inay tahay arrin loogu talagalay in nimanka odayaasha la laayo okay naftu waxa waaye ilaahay baa la siiyey haddana isagaa naga dhaaday intaynan halkan wala fadhida inaan guryaheena nabad ku tegi doono in kale ilaahay baa naga laakiin midda naxdinta leh ee murugada leh ee marna aan la hilmaanayn ayaa waxay tahay habkii loo dilay marka Soomaalidu waxay tiraahdaa ereyga maxaa jirtaa arrin soo jireen oo la sheego markii arrintan kala dhaco maxay tahay taas xoolaha waxay leeyihiin laga dhayli iyo laga dhufaan si maartay neefka caanaha yar hadduu lab dhalo waxaa la leeyahay siduuna maxaa u farcin ilma kale u keeni khaasatan geela neefka ama waa la iibiyaa ama waa la dhufaanaa suna wax u dhalin kuwa iyaga ahabaa dadkii loo daayay baa le si salaam dhamaantiin meel fadhiida oo kale isku koyna meel inuu taxsiyeeyo qabiil meel isku koyna warkale meel isku koyna taxsiyeeyo isku koyna dad waalidkaan adeeradaan إنك سن وراء كأنه إنك مسلم كوراء كأنه إنك ديان كوراء كأنه إنك ما يلقى سومالي وراء كأنه وتكسر الدلي كلام قرض رنا الدلي ولي وها قفدي كمدنا جنوب سكوب بدني مروار كفاضي ونجنب أي بسنك نتكاد الدلي إلهي سبحانه قادر بسأوك ونمؤجيني لكن إلهي سبحانه قادر والويتيسان إن حقق سهد الله عليك تاريخ الصومالي مكجرته ده قضية الجماعي هيستوريا مكجرته لأنك الجماعي مكجرته ده المشكلة مكجرته ومشارع مقارنة لكن حتى ولي التاريخ اللي قال لي بان بدو سديت قضية رقمات والدنباء القلب أو جوار بيس ولا كتبين حتى من الكلام بدل السؤال يجي كده الجرع مش من تركسمه ولا الجماعي تلي تعرفنا وريوها ولي كي شغال سردي قضية رقمات كوري أيينه dadkii orkii tara fadi hadii la isdiro dadka shaqeeyo fadi ma ilaa hadii gabarnaawidiisa dadkii fadi waliba dadkii oo geedka hoostiis kartiga gooy jiray hadii dadka soo dhamaayna wali iska haraayeen xayawaan oo la shaqeeyo korna soo waliba ham Maxamed Dales yaa tukar wali artay aan odayga la dilay Soomaaliya ka dilay markii guriga koyti I remember 7 years ago wali artay eedo meesha waxa tiraahdo ma aha ay tiraahdo waxa dilay Soomaali wadanka waxa loogu talagalay haday waa in oo wax garadkiisa odayaashiisa waxa tiraahdo mutacalimiintiisa dhaqaatiirtiisa injineeradiisa saraakiishiisa laga laayo si aad loo maamulo soo markasta qof Soomaali aqoonyahan la dilo ama qof Soomaali oo qiimo kale bulshada la dilo هذا كلام صح سوسته
sababtoo ah Talyaani wuxuu dhahay kii naata primo di te un giorno e sa più di te un anno qofkii hal sano hortaada dhashtay hal sano hortaada og yahay marka Soomaaliya amara ku dhacay mucjisa ku dhacday waxaan strategic plan ayaa Soomaaliya waxa loo eliminate garaynayaa qof alla qofkii Soomaali u tirnay tomorrow historygeeda la tirtiraya jiritaankeena qatar ku jiro anagina waxa isku haysanaa qabiil hibil iyo tuulo land qabiil land goof land isku haysanaa mashquulaan naga dhigay anaga markii mashquulna naga dhigay waxa waaye ideology gant terso god again waxa la hadii dagaal ku saddexda faa'iideysto anagina dhinaca iska cunayna wadankeena dhinaca laga cunuhaya marka Soomaaliya qabiil aan inta keenin ana iskeenay qabiil wuxuu ku taray ma jirto meel ku sii qorta qabiilka waa isku aqoonsanayna waa isku jeclaanay laakiin markii loo imaado magac guud ee Soomaali halaan ka ogaada wala wuxuu leeyahay qabiil wuu jira ana qabiilkay waa jecel si fiican u jeclaata ay sheegaya laakiin waxaan ka sii jeclay Soomaali ana sabta qabiilkayga ma jiraayo oo Soomaali qabiilkayga wuxuu ku hoos jira umbrellada Soomaali without the Soomaali qabiilkayga ma jiro odayaashana qofkii dilay Ilaahay subxaanahu qaadir waxaan la baryaynaa intaan anaga isku maqaneen ugu mashquulinahay inuu Ilaahay subxaanahu qaadir aanadii u dhaxdhacday soo siiyo amalka dhig wixii dilay banaanka soo joojiyo haddii Ilaahay banaanka soo joojiyo anaga tuunka laga haray qalbiga loo qaboobayo cadaalad waa dhacaysa wadankaasna justice u baahan yahay wadan haddaysan justice jirin peace ma jirayso meel kasta adduunku waxa uu kala socda law and order haddaysan adduunku ay meesha aan joogno wadanka waxaan kala xagaay waxa way law and order hay ugu soo xadgudbin ugu soo xadgudbay nimanay buluuga joogan naan wala joogto aska kaacinaan adiga laakiin meel ay sin jirin naan wan meel ay sin law and order jirin meel ay sin nidaam jirin waxa korkaada lagu soconayo la jadal reform ka socda marka maskiinka korkiisa lagu tumaay miskala fuula maskiin aan dhawaay iska ma kaacin kara qori ma haysan beero waxa jira Soomaaliyeed qori aan haysan aan dagaalamin beeraley ah xool dhaqato ah siisatu dagaalka maanta ilaa dadka dusha laga saaray harsasho waa loo diiday hargalmo waa loo diiday hooyd waa loo diiday bakaalooda la gubi guriyahooda la gubi goofkooda la gubi weliba waa socota dadna u sacbinayaan waxay leeyihiin waxa ma dhicin is not fair taas qofka Soomaaliga damiirka leh qofka Soomaaliga damiirka leh waa inuu ka danqada walaalkiisa wax ku dhacay beesha biimaali beesha direed wax ku dhacay annaga inuu dhacday qof kasta Soomaaliyeed waa inuu ka danqada sababtoo waxa ushi walaalka ku dhacday gudubkeeda ku sigaa ka xanuun badan ee gudubka ka kaleeto marka waxa waaye feedinaan galna waaye dawladda u sheegno dawladda Soomaaliyeed dawladda marka qaabad dawladda ayaa leedahay dawladda annaga ah dawladda ma jirayso without the shacab haddoo dhul jirin shacab ma jirin dawladda ma jirto soo dawladda annaga waaye dawladda waxaan u sheegaynaa dawladda Soomaaliyeed inay actionkeeda ahaado fast action markii qof Soomaali wax ku dhaco sida Kenya ma lagu xasuuqay hooyeenka geejka lagu xiray camp concentration la geliyay sidii asku jiwaagi Kenya ka bilaawday waxa ka hadlo dawladda waxa waaye waa baahana waqti loo cun haday United Nations masruuf weysa United Nations aska baxdo annaga asqumna darbi aska baxdo marabno Kenya ha baxdo amxaara ha baxdo oo misra qolkiisa wada annaga aska soo qalin laakiin maali laakiin qof Soomaali dilo aqoon ka hadli karin oo afkiya jooda qabay inuu dhacdo isna workii sheekada leeyda walaalayaalow dawladda eed madax annaga ay dilay sababta qaadka annaga askari haddaan shacabkii Soomaali hay waxa way waxaan naqaanaa always inaan ku dambi saarno annaga asistaan dambi qaladka annaga askari sababta waxa way hadii qabiilkayga maanta la taat alarm galaya laakiin hadii qaranka wax ku dhaco xalle oo dawladda shaqo ku leedahay dawladda shaqo walaha qof kasta Soomaali oo taat ana mas'uulka ka kala mas'uulka sababta aniga markii aniga hadii aniga maanta badbaado garin ma badbaaday hadii adiga ku soo dir ana soo socda soo aniga ayna feejinaa galwaay waxaan leenahay odayaashaas la diray Ilaahay subxaanahu qaadir xariis iyo jannaah Allah siiyo qabrigooda Allah ku qaboojiyo martida jacayl Allah ka yeelo waxay dhaafeen anaga gadaasha Allah nagu fidneeyo wadankeena dawladda Ilaahay dawlad caadil ah xaq ku socoto ummadeeda ilaaliso wadankeeda ilaashato nafteeda badbaadsato oo Ilaahay subxaanahu qaadir caadil oo cadaalad ku dhaqanto waxa war gobonimo lagu dhintaa bil dhimanayo gobonimo lagu dhimanayo waxayna siina waxaan xasuustaa
أنا شغالة دولة عشان كده ديارة حسابية بودة سعسية ديارة أنا مركز سومالي دولة وحد عدي محمد سياد برغون تايم وحد عدي وضنك وحالة أبارة عدي وحالة وديس معاونة وديس دودي وحالة كانت ليلة وحنا كان مركب وقمدي ورسالي ما وحسن الرجالي دقر مسجدي قال لي أو جالله إلى سالي قف كستو سومالي ميد وحكيستا مركب كاس تقدم الشمس والعافية دبوا علي وحريتولي هذا ذكي حد غابت أبيار أموري بلا غيره كان حقوق يتنو به إن أبيار أمور كيستاجروا به يتوقف مشغولان مرة من العشرة وشيء وقالوا علي دولهم حوار وباهنا قلت له محنا وحدان لبنها حدان كانت تبغى ذلك أنا أقول الدفاع إليه أنا أقول سوبر من إليه أفكار فرصة دولة هداتين ومدر رمينا مركز إيجوبتك كهذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللياب مال رنتي سبرايز نبي نغلاسو. أرنتام هديك تجرنا هاي كويا تيساسواتي. دولة كهرايتي أو حلقة عبد الله يوسف دت كيشك وقرب قالي هاي. ويلدهي دت كجودية كجران هالقف هنسيوي. ونمول بكومنت الشيء عن رأي جي حشاري ضاي. ليسس كحلوان ذا الجود بياي مكاس. قب جودا محاي يعني. خد بدأي ويكتبتي إذا دايرتي لكن وان شورت بساق هذا. والدليل إن أي حد حلقه نقدر. لما بقول طلبات الإشان حلوان هاي. لما بقول يخنتم إلى تريد هاي. ولا مقراني ولا ما أخريني. marka adduunka waan sheegnay dadka cabsadayaan run waay gabadh siidata waay cabsi ilaahana ilaahay ilaahay way dhahay inna allaha laa yughayyiru maa biqawmin xataa yughayyiru maa bianfusihim mawduuc wadaadada ku hadlayaan diiniyanka ana ma galaw laakiin dhinac kale ku sheegnay ilaahay ma dhahay inna allaha laa yughayyiru maa biqawmin ilaahay usigii ka abuurada ma falo inuu iski bedelo sababtoo ah وأكيا أظن أمل عبادس إنه كجرا قال منافقين قال الموجيل ياله قال كل رزق قال توبة ما كأني ناقص قبضتوه عنو كهدي سؤال كل استاي أكيد قبضة هدي المقضى ما ضد كانوا ويبدينا دولة أي شيء عندي دولة لما بقول خنتم أو إيه رادم كو هاينة تكين ينبروا مشاعر أو نم مغاشة نم دبلوماسية قل كي ينكوانو جيف ويداي مستر أبو بكر you and your friend cannot be in this government يعني هذه إساحبك دولة دان مقلاسة you know why simple because that can كفدارة هاينة قلت الشيء رمى الفضاء سوماليا مركو إنسان نقدر مركي أنا أولياء international كسر نروح في الدنيا أنا ده نمي يلا الدولة دائما نيم أنسحيو تانا it was question that I asked them by the way English هذا لا يوان دوبل satellite كيف بهاي وقتها أنا لما ما مايك هذا أما إنجليش هذا لما ده كذا مكاسة كيف لقاله وإنك جوابه أضياكي مسوقرن كقصر عن المرء أضياك سوقرن يعني إن شاء أنا قدك جري سينك قرن ونقطه إن بيش إنك قفك إنك سوق راعي يرنشه ويديك نمكان والله ريال كتايم الموضوع كوي كان ريسكوه كوي باورد فولانوه كلمته كجابسد كمسؤول سينك حاله وتم كساب والله أكيد سينو كشان بادي لما نسبق شيء ودلو يعني بقال الشان مركا كسايني نطني صدراني أو حتى
Somalia good middle gridoy talana. Today, listen, you guys I'm so absurd. My well I'm kind of coin. Nagada shaqalayna. Hello min coin best with this min coin. Markas la bint kubay. Tumukun dollar jab ke dadkana baahanaya. هم كلهم كوكوي بس كلها سفن كتران يعني الجزيرة سفن هاي الدنيا كثير سواي وريقي صوماليا الدنيا ده شعب الكحوي أدي الرقص شعبه مسكين ما أنت إلهي ولا كده إن الله لا يغير ما بقول ما أنا كستعبير حتى أضياء كاين وذا دياك صلاة السرون ينوس أخيا إنه كا لكن معني دي بفهم شيء I don't know وقت الشارع على يسي مرحلة عمل بكاس غيرك الدراسة أضيال يلديني الكلام ورميل الدلواية أضيالك سواء نمنا شرعي لون كواري إنه سنون تدي قال هتاي أضيال سوس شاقوي نمو سنتين تنمالي أضيال إنه سدلو ورعني قال كاي ساعة كورا إنه ماي أي جيبت هانو عايم وقلت نانت وين دورا هنا سيرتيفيكيت هنسيو إنه من أنت نعلم معنى نابو شو قول كاس النهارده يعني إيه كلام what kind of people يقولون اللي شيء دوان سوداني حتى سومالي يعني نصير ضروري الكلام حتى وحين مثلا إنه فيسبوك يضرب مشاكل سومالي ما تصير يعني ويصير توستي سكري what kind of people نفتك شعبه يقولون هذا sometimes ياوسون ما كوي ولا من يالو عايد إلهي سكر راعي سام إسبدل حتى إن إسبدلنا دولة سيشاي ويتام أنت إنما كان دتك دليل سواء قبلا وهذاك حال تاني ولا سواء كذا إنك سبتوا أيوة مركا موضوع هذه قال تعسي وايد أضيالك أو مرتدى شرفتنا أو نينك ويرن أنت أوك يعني أجيبني الدعوة دي كو أقلاني كم كويني رنتي سين الشارع نحنون كسنسين حايو أضيال كان قارة كسان دولة دي سوماليا لح بلوت وإنتان موقنا سوماليا والنساء والنسوبيا قربان مركلة تمهو روى وحي لطلع والزالنا قف كنت للجرء إنه وحكي قبطة مرح سوماليا مركا إن شاء الله إلهي هكسو إن دد كلا أي صبحان دد كان هذا الجوق دد معها وإن تستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم دد كاس السجون دد كاس روغان دد مركا ليش ما يأتي ليش نفتر شاب إنه نفهم له نفتهم إله الله يوصل لقويكم واجب وين يدمتوا نفتر لقوي ها شرعي لك قويكم سومالي مركا أديو I don't know أضياك منكم متى يا عايتو سوق هذا ما إنه نص الجواب لكن ما يفرق إنه نكسو بي little bit correction because maybe not Somali إنسان Somali إنسان أني ورث وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا من المؤمنين Somali كوروغا مؤمنين وا I'm not sure this was the way وإن بقى أنت نفتح تعليمات عن بعض لو قال حتى لو يلقى هاي شرابة أي شرابة ذاك شرابة أي فأصلحوا بينهم أول أي تذكر أصلح الحديقة ويشاكوا بالأيام بينهما فإن بدت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لك فقاتلوا التي يعني ذاك كلام إنه هالميرك سوى الجسد تيديد لتموا والصومالي جرى قبيل أطمر لمواي أو الجيل تبكر لين تقابل مكر جرى صومالي هل أف نجتي قبيل كذا كتير أنا لما قبيل كتير أطمو كان جرى مركا عيد هذا مسعدة صومالي مسعدة زايد إلهي بمشي نفتح شيء غيري حدي أنا صار قارو هلا كان يرى الفضائل kinds of killings in Somalia generally. Particularly in southern Somalia, it's politicians and elders. The mission of Kushat and Master could get decent Somalia that year. I told him we share a jump by Camera, Puntland and Office, Kitil Sakawari. Puntland could get decent that or how or Nalash wala layang that ka kala dong ira at ayang hangkal na dong ayang galit tomorrow
markii iisuu ninkii waldilo soo qabada kan suugta maraayo sheegay لكن Soomaaliya ayuu ninka qabado nin maskiin eh يعني الأوك شغالها هوس إندال this is it was very planned والله سوبيا أضيال كان إنه بيدا وروجا لوجاي أضيال كان تايم كي صوب بهايا لوجاي أضيال كان باروك يكرايا لوجاي أضيال كان لين سودان للدليل والفاي حمي هذا أنت كده جاي إنه الدولة الله هتيجي بهذا اللي وانا سيدروا ما كأني كتبت الدولة هذا شفت الهاز يعني حتى قاتل كوي ما قرية بينات القاضي الكتب وما يقرب سلام مساكين وليالو ده هو إسلام كتب أقول إنه ده ساس اللي ندلو مش كنا محتاج ندلو كتب ما كصومالي جنرال سونك هذا دلو كجلو ولكن استعماله وضد كلها وطلاب كلا إلى المؤيد إلى ما أريال مصري هنا الدمشق كياس بس الدرب أيضا حوايس النبي ده عليه الصلاة والسلام they use جنما كلا ولا يمرد مياه because نن إن كنا حين نور شيء يتد شيء عند شيء نن كنا حين they use واي ولن كده هي مال كان سجال بلاد كده هذا ويبقى كوي أنا سمعت كان كوي أقول كان ما يدفع الوزن ستة لماي شبابها هوسي واي حل قليل انت قال له ما نقول بلن والقليل دقة شاكير انك شاكينا انا حملت تقي قاري عيال يسوي جار ده سوي جار حتى بقولي اضياشا سوي جارين اللي هذه قاري انا لو كربح وعلي ولا ماشي تولد علي عن كلمه ما كان قاري انت الفول انا يا حنكي نمر قري وطاق وفقيا انما كانوا معايا واي نمر كان وين ده مقا حبل يعني مرة عن شيء قد مراجعت والله ودي أنا ما نفتي ماله لكن لا إلا مرة من كدرج أم قريش وقعت سمعوا من كي قرية قرية هدي أرك شيء كده هاي كوكالا جد سؤال من كي إسبار إسورايسل من كوي بلد قبل ده هنا كويا ودي اسم قرية مسؤول كتانا شباب الله هاسي أيانا وفق أهانتي لكن السر من قبل كي شاب هذا كفر شيء كذا. أولياء كانوا يتهاي إنما يالو وطن كان كذا نورا وكذا. شقي سيدكر. كسب معنا والله نرد ولا كنت لقري عايز تودل. هبين كي أيوة متمركان قرية ترنا ولا لو في واحد شيء توارن. لكن محله هو يدك ماشان دكان هذه هو أكله أيوة يجوا جواب كذا. صارت عليه مجوري كر. إسكو نقبل مني هم دكان. إسكو دين حتى مني. هرون وشيء ما يبغى أنا قبل مساجد ميل قلقة قبل درس كيه ما كفصل كار قبيل من دل كرفة بير تطلق مقالك دون تطلع مقالك والنوتر برا ما لسه تريجر سومالي والكل النوتر برا سومالي مجرد انتوا برا قلقة يبغى تقالم كار مجرد لكن تدبر بيس كده هذا يعني حضارة النويلة